mixnadaha aad maraysa iyo fitanku adiga suuraddaad u arkaysa waxa laga yaabaa suurad dhibeed inay tahay laakiin waxa la arkaaba inay fursaddii kuu tahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kula rabay kugu gaadhsiinayo noloshu way ballaadhantay innagu daaqad yar baynu ka aragnaayo qudha intan yar aynu noolle baynu aragnaa inteeda kale ma aragtid walidaalika ashyaa badan oo aqdaarta ilaahay ka mid a baan xikmadeedu kuu muuqanaynin maadaama aanad arkaynin intii kale oo ilaahay wuxuu ina leeyahay وعسى أن تكرهوا شيئا وحلا أركا وحيابا قاركود إلى كراهيستان لكن خيركم يسقى يدين كجرو وحيابا قاركود نيرات شعليسته لكن وحرات عشاهين شركو كوجرو إلهي سبحانه وتعالى قصوا يرغوا الرمياء إن نبي يوسف الله الدوني إنه مدح كدقو لكن سي مدح لوغا دقو طريق دير با إلهي سومري نبي يوسف هدو قرقود اسكي جوغي لا ينانو مدح نقدين باي وضانتي لكن إلهي جد بو سو مريا دار جد كامركو كسو تلابينا مصر بو مدح دي كان نقدين oo jidkaasi muxuu ahaa in isagoo yar god lagu rido walaaladii baa lagu itixaamay oo god ku riday godkiina qola safaraa kala baxday oo addoonsatay addoonnimay u iibiyeen addoonnimo markii loo iibiyeyna gurigii boqortooyada iyo wasiirada meeshaasaa la geeyey casiiso misr haddana waa la itixaamayoo inuu gurigaa addoon qudha ka noqdo looguma talagelin way addoonnimada ma dhaafeen waxaa imtixaan kale ku noqotay gabadhii guriga joogtay imtixaankii kale wuxuu sababay inuu xabsi galo xabsigii wuxuu sababay isna kuwa riyooday inuu riyadood fasiray boqorkiina inuu riyoodo oo cid u fasirta la waayo inuu sababtaa kaga soo baxo boqorka riyadiisii inuu fasiro riyadii boqorka uu fasirayna inuu ku noqdo maxay maamulka sare nin loo dhiibo idan qisada tani waxay tilmaamaysaa walaaladu tadbiir bay sameeyeen nimankii la walaala ahaa yuusuf aan dillaya aan fogeynay isku qabteen aan fogeynadii bay qaateen godkaasay ku rideen waa la arkaa in meelaha la addoonsado la qaadeen imra'atulcasiis qadiyad kale dabarteeyana wiilkaa yar inay hanato markay weydayna waxay isku dayday inay kufsato markuu kufsigii u suurtogeli waayena waxay isku dayday inay xidho waa xidhay tadbiirkeedii kaasuu ahaa sijnigaasuu soo maray boqorku waxbuu dabaraysana laakiin wuxoo dhan marka la isku daro ilaahay baa wuxuu ina leeyahay والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وحاب بن آدم كتدبيري يوردن إلهي وحليه سبحانه وتعالى إلهي أركي سواكي كحوق بدن ضدك سينت بدني مؤقبا إلهي سبحانه وتعالى إيقو التدبيرات بشرية بيودين لكن إلهي من ورائهم أسباب تنوحكروا غدا لها يا نبي موسى إن ليمكن إن إلهي مكان سيوه أو النقطة كدولك كتلين هي النقطة والله غالبا على أمري ولكن أكثر الناس لا يعلمون أيها الأحبة إله سبحانه وتعالى مركز نبي موسى بدأ ودبري نبي يوسف حبسك يدولك كسو صاري إمام الكيسو نوعي وحين ليه ورنا عركي يدولك بهمته أنا أدونك يا آخرة ماله يا أنا غير لي الدنيا والآخرة لبدا بقى أنا قعنت يدي كوتشيران با إله إليه سبحانه وتعالى جدكا هدا مرتان جدكا نيلا مراه وحوبا هي إن ليس يتحامده نمولي بعد دولا بعشا انتو تكدوحوا ربوردان وهليو دي امتحان تحسي نغن مش waxaa la yidhi waa laydin soo itixaamaya maalan qisa ilaahay inooga warramay nin mu'min oo aali fircoon baa ilaahay ka warrama oo leh fasatadkuruuna maa aquulu lakum wa ufawidu amrii ila allahi in allaha basiirun bilcibaad tolkayow
وإذن قرن دونتان بولي وحسوسا دونتان وحان إذن لايا وحان إذن أران دونه يبا إذن حسوسا دونا أنا قنا أركي يقولي إلهي بانو أردكت إلهي بانو أبندكت إلهي بانو ليبت يعني أركي إلهي نواكي أدومه ساركي كلمة ما يدو كبلاو مايا قرآن قصة دير بكسا ورمي سورة المؤمن غافر إلهي وكسا ورمي ninkan inuu tolkii diinta ugu yeedhay inuu xujo la xujaytamay inuu naseexeeyey inuu xaqa u caddeeyey markii arrinku soo gaadhay inay yidhaahdaan waa ku dilaynaa weeyaan markuu leeyahay waxaan idin leeyahay idinna waa idin garan doontaan dib ba idinka xasuusan doontaan aniga dilkana igu hanjabaysaan iyo waxa kanna ufawidu amrii ila allah arrinkayga ilaahay baan u dhiibtay إلهي بمركب جوابت آيات كحكتين وقلت المام فوقاه الله سيئات ما مكروا بينهم الفاء للتعقيب والترتيب فوقاه الله إلهي وحوك إلهي سيئات ما مكروا وحي نكرن إيا خيانة إيا مكرن إيا السمايين حمهدي إلهي وكان نورا حق كلنا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون خير فرعون إلهي وحود الدنسية عذابك يأكلوا عذابك يوفر الحمامة قونا للدنسية كان ولا بدبادي بقى لله سبحانه وتعالى قرأك ينوم الشيء قصة مؤمن آل فرعون قابك لو بدبادي يوبح صدي ما قولا سيدي سيك ما لا ينوم الشيء لكن إلهي وحود ينوم الشيء يقول كنا ينو بدبادي كوي كلنا ينو هلاقي أيها الأحبة آيات كسوحي نوت المامية أمر التفويض ومركز أدوغو وحي كسارة سميسيد انت الميرس كفرسة هذا تلافع وقول ما الرباية إلهي بانو تلسى عرتي هاسي التفويض معها تفويض وحويان مركز إلهي جيتكي سراع ذا أسبابتي هذيك اللغو أمرين سميسو أسبابتنا هند آمن سنين إلهي آمن سنتهي سبحانه وتعالى ولذلك بقى إلهي القرآن كما قلت المامي يا ننكي كبرية حولا بدن حبي يا قارون لورن شري تلكي يولا تالينيا حكونا يا ورهوي وحبها كبرين لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين بكودان ورقوقي قوق درادة فرح إلهي كو نوع عاسية متشعلا حيكو لا تاليان مركا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا ما يكون أورانين أدونك وقتك وحبها قوانين شغيسان عدنكم أوران اترك الدنيا لما أوران هل قول ولا تنسى نصيبك من الدنيا الدنيا ده دفت هذا إلابي لكن وحلوه الرئيسي وابتغي فيما آتاك الله وحي ألا كسيك وفي قرانك لما أورانين وحي أتشغيستي waxaa la xasuusinayaa waxaan in ilaahay iska lahaa isagoo qaawan baa la dhalay de ninbaa dunida yimi isagoo xoolo wata adoo qaawan uma timi hooyo ku dhashay dabeetana waxaa la xasuusinayaa waxaan uu haysto rabu samaawaati walardi inuu siiyey marka maxaa la yidhi wabtaqi fiima aataaka allah war wixii alla ku siiyey waxaad ku raadisaa daarta aakhiro oo waxaa loogu dardaaranka loogu kala horraysiisay u kala muhiimsan yihin adduunka inaad guulaysatay aakhira inaad guulaysatay kee weyn ta aakhira weyn marka qofka markaad la talinayso dee arrimaha waaweyn markaad kala talaysaa waa kuwa yaryar loo sheegaa saa daraaddeed waxay u horraysiiyeen warooy waxaad haysato ee ilaahay ku siiyey nin ilaahay qadiyey miyaa inagu jiraa may qof walba ilaahay waxuu siiyey caqlu ku siiyey aqoon buu ku siiyey cilmu ku siiyey caafimaad buu ku siiyey xoolo ku siiyey dad buu ku siiyey qof walba ilaahay waxbuu siiyey laakiin ilaahay maxaa laynaga rabaa wixii alla ku siiyey intay doonaan ha kuu leekaadaan ha badnaadaan ha yaraadaan wabtaqi fiima aataaka allahu daara alaakhira warraganimadaada iyo aqoontaada iyo cilmigaaga wixii alla ku siiyey daarta aakhira ku raadi walaa tansa nasiibaka min addunya adduunkana dheeftaad ku leedahay ha ilaabin xogso wixii alla ku faray samee waaxsin kama axsana allahu ilayk laakiin sidii ilaahay kuugu samafalay u samafal adiguna si ilaahay kuu wanaajiyey
ونكسنوا ولا تبغي الفساد في الأرض dhulkana ha xumaynin oo ha fasahaadin ilaahay khalqigiisa iyo basharka iyo adduunkaana wixii fasaada ka ilaali waayo ilaahay mufsidiinta ma jecla bay kula dardaarmeen ayuha alaxiba matluubka shayga ay markaa waa maxay wixii allayna siiyey inaynu aakhiro ku istismaarsanno adduunka waxaynu naqaanaa in lagu idhaha saving samaysayo dabeetana maxay sameen istismaar saxanka maaha xoogso dee waxaad cuntuun waxbaa ka dhigine wax meel yara dhigo weliba waxaad isku daydaa waxaad meesha dhigayso meel wax soo saaraysa inaad geliso haddaba waxa nolosha oo dhan waxaad isku daydaa sayfinkaaga ugu badan inuu aakhiro noqdo ilintaan waad ka tegaysaaye sayfinkaaga ugu tirada badan leh inuu aakhiro noqdo saxaabadii sida tan fahamtay markay doonaan abubakar dadka wuu iimaan badnaa baa laleeyahy waayo dee waa ninka 2 goor xoolihiisaba ka baxay wuxuu arkayay inuu dee fursaddii ugu ballaadhnayd inuu hayo markaasuu dhiibay wuxuu haystayba kalsoonuu ilaahay ku qaba daraaddeed idan waxaynu u baahan nahay nolosheenna inaynu investment uga dhigano inaynu invest garaysanno aakhiradeenna hadduu caqli yahay hadduu cilmi yahay hadduu dhaqaale yahay hadduu hanti yahay wax kastoo aad haysato waxa ugu badan inaad ku invest garaysato maxay meeshaad berri u sii socoto ilaahayna wuxuu inoo tilmaamay tilka daaru alaakhira najcaluhaa liladiina laa yuriiduuna culuwan fi lard taasi waa daarta aakhira baa ilaahay yidhi oo aan ugu talagalnay kuwa aan doonaynin dunida inay ku kibraan lama odhan aladiina laa yacluun lama odhan kuwa aan koraynaynin muslimiinta inay korayso waa la rabaa alislaamu yaclu walaa yuclaa calayh inay kor noqdaan adduunka taliyaan waa la rabaa lama odhanin markaa kuwa aan kor noqonayn ee waxaa la yidhi maxay kuwa aan doonaynin inay kor noqdaan macnuhu waa maxay waa kuwa doonaya aakhiro iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala wax xaggiisa jira raadinaya marka waa iraadat alculuw maxaa laynaga rabaa inaynu qulubteenna marka koowaad islaaxinno qasdiga iyo waxaynu u soconnaa inuu aakhiro noqdo inaynu islaaxinno saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahay aakhiro waxaan ugu talagalay liladiina laa yuriiduuna culuwan fi lard kuwaan isla weyni iyo kibir adduunka ku samaynaynin walaa fasaada walcaaqibatu lilmuttaqiin adduunkanna ilaahay wuxuu ina leeyahay man kaana yuriidu alcaajilata cajalnaa lahu fiiha maa nashaa'u liman nuriid tan degdegaysa ninka doonaya waanu u horumarinaa baa ilaahay yidhi kuwaanu doonno wixii aanu doonno maa nashaa'u liman nuriid dadku xoolo u wada doonaya miyay wada helaan ilaahay wuxuu yidhi kuwaanu doonno iyo wixii aanu ka doonno ayaanu ka siinaynaa kuwa adduunyada doonaya ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا كدمنا جهنم كو أبورا يا با إلهي سبحانه وتعالى أما كو آخرة دونية ومن أراد الآخرة لبدا قربة إرادة بالة الماما إرادة دوا محي وقصد قاقية النية دي واحد أفكر يسعطها وحي ما الدون هل بعض صعطها بس آخرة هل بعض صعطها حق قلبي قاقا كبوحة ومن أراد الآخرة با إلهي منك آخرة دونية ووسعى لها سعيها شقد يدينا قبنية وهو مؤمن نسقو إيمانا لغا هلي صد 11 شيء عدة لغا هلي إرادة صافية أما الدونس أن غبش وضنين إيا شقو إيا إيمان صد 11 ننكي لغا هلي با إلهي سبحانه وتعالى كاوا محي فأولئك كان سعيهم مشكورا كون اللي من نشاوي اللي من نريد لغو حدين كون إلهي وحولي كان سعيهم مشكورا شقدو دوال لغا أبال مريني شقدو دندن إلهي سبحانه وتعالى كأبال مريا أي نقنس أما الدنيا ده كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا أنتم قال هذا روح بانو كسين با إلهي دي مسلم روح بانو كسين إلهي وحبحنتي سنة وابالله رنطهي أيها الأحبة درسيا حنكو صورورينيا مسألة الدنيا آخرة بين إلهي هيين قلبي نسفي عن جعته
adduun iyo aakhiraba inay ilaahay gacantiisa ku jirto. adduunka markaynu islaaxiisa rabno dariiqaynu u maraynaa inuu noqdo labadaba ilaahay inaynu raalli gelino. haddaynu adduunkeenna rabno inaynu wanaajinnana inuu dadaalkeennu u bato inaynu ilaahay raalli gelino. haddaynu rabno aakhiradeenna inaynu wanaajinnana inuu dadaalkeennu kan u bato. inaynu garanno cid kaloo dunidan maamushaa inaanay jirin. waxaan kaloo dhammi waa meelo soke. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu doonayo wuxuu tilmaamay kun fayakuun inay ku dhacdo. fasubxaana aladii biyadihi malakuutu kulli shay. ilaahay hadduu wax doono waxalaaliya wixii alla doono subxaanahu wa tacaala rabbi wuxuu tilmaamaya inay kun fayakuun ku dhacayso oo aan cidinaba maamulka la wadaagin. inamaa amruhu idaa araada shayan an yaquula lahu kun fayakuun. fasubxaana aladii biyadihi malakuutu kulli shay وإليه ترجعون. أيها الأحبة، إلهي مركا آيات القرآن مثلا في سورة آل عمران نبي الله محمد سقوا إلهي الله هذا يوحكو يقول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل إلى آخر الآية. ربي وحليه واحد كتر هذا ضدك أشيك نبي محمد بوح لفرية إنه أشيك مسألة النبي قال لي ضدك أشيك وامحي اللهم مالك الملك. إلهي سبحانه وتعالى إنه يهي ملكي دمانته بغرطوية دمانته إنه سقوليه يهي lahaanshiyo qura maahee inuu isagu weliba ku tasarrufo cidduu doonana madax ka dhigo cidduu doonana ka qaado. ilaahay baa le baa la yidhi maalik ilmulkiya. haddana ilaahay wuxuu raaciyey tu'ti lmulka man tashaa dheh. madax baad siisaa ciddaad doonto. wa tanzicu lmulka miman tashaa ciddaad doontana waad ka siibtaa baa ilaahay yidhi. nascigu waa wax si qasaba lagaga qaadayo. هذه يقول من طبيعة البشر كرسي هو اسكو نباه مركا هو لغا سيباون اما قانونها لغا سيبا اما حوقها لغا سيبا وان لغا الريحة لكن ما بدنا انو يسوي اسكي وغتغو. إلهي مركا وحولي سبحانه وتعالى وحتى هذا ربي يو اديغا ملكي غوردن اسكاله عدا دونتو اديغا سيا عدا دونتو ادا كسيبا عدا دونتو ادا مقعيا ماموسيا لو شرفو حوشيا ciddaad doontana adaa dulleeya. si loo adkeeyo mas'aladaa 4 goor bay ku soo noqotay man tashaa. lama odhanin inta 4taba la israaciyey. tu'ti lmulka watanzicu lmulka watucizu watudillu man tashaa mar qura lama odhan. mid kasta ilaahay gaar buu u raaciyey man tashaa iyadoo uu rabbi subxaanahu wa tacaala inoogu tilmaamayo mulkigan ama dad wax la siiyey ha noqdo ama kuwa laga qaaday ha noqoto dhib dhacday ha noqoto wax kasta inay isaga tasarrufkiisu ku dhacdo. cid kale oo tasarruf rasmiya lehina inaanay jirin. oo macnaheedu waa maxay? asbaabta dhammaanteed in ilaahay maamulo subxaanahu wa tacaala. saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy biyadika alkhayr. waxaad tidhaahdaa ilaahow khayrka dhammaantii gacantaaday ku jirtaa. بيدك الخير والشر لما ورنين. هاي علماء يراهدان وهاي تلماميسا أفعال الله كلها إن خير كطي. لكن ما دام أنا إنك ينوض موقنين مسألة الدمانتين قور ما شيء حكمتي سلكرتها. شيء حكمتي سو حد فهمي كرتها مركز أقوانو يالته. دانا دقوانو لهين حكمت way kaa qarsoontay mar walba. sidaa awgeed noloshu way ballaadhantay. innagu daaqad yar baynu ka aragnaayo qudha. intan yar aynu noolle baynu aragnaa. inteeda kale ma aragtid. walidaalika ashyaa badan oo aqdaarta ilaahay ka mid baan xikmadeedu kuu muuqanaynin maadaama aanad arkaynin intii kale. gacantan haddaad intaasoo qudha lagu tusiyo dee intaa waad sifayn kartaa laakiin gacanta ma garanaysid. waxaad gacan garan kartaa markaad wada aragto ayaad fahmi karaysaa.
nolosha in baynu ka aragnaa keliya laakiin in badan oo ballaaran oo ka dambaysaa jirto oo tilmaamaysa ilaahay xikmaddiisa iyo cadaaladdiisa iyo wanaaggiisa iyo suu wax u qabto tilmaamaysa marka waxyaabo badan oo laga yaaba bini aadamku inuu hadda sharaysto ama dhib u arko ayaa waxaa la arkaa inay tahay maxay khayr oo ilaahay wuxuu ina leeyahay وعسى أن تكرهوا شيئا وحلا أركا وحيابا قاركود إلى كراهيستان لكن خيركم يسقى يدين كجرو وحيابا قاركود نيرات شعليسته لكن وحرات عشاهين شركو كوجرو markii ilaahay inoo sheegay adduunka iyo maamulkiisa iyo cizadiisa iyo duleyntiisa iyo arsaaqdiisa baynu isagu gacanta ku hayo aayadda labaad waxa la raaciyay markaa kownkana sidaas laga inuu maamulo oo maxaa la isku xidhayaa basharka maamulkiisii iyo kownka maamulkiisii baa laba aayadood oo qura ilaahay isku dhajiyo isku tilmaamay aayadda hore markii la tilmaamay bini aadamkiisa ilaahay noloshiisa oo dhan u maamulo ayuu wuxuu ku xigsiiyey tuuliju leyla في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إلى ودا هبينك دحق لي مالنتنا دحق لي هبينك إنه ديرادو أما مالنتو ديراتو إلى ودا معمولة وحنول واحد انتي ذاك صوصار أما واحد انتي وحنول ذاك صوصار waxaa ilaahay inoo tilmaamaya subxaanahu wa tacaala isagu inuu yahay ka arsaaqdana qaybiya bigayri xisaab cidduu doono xisaab li'i ku arsaaqa macnaheedu waa maxay macnaheedu waxa weeyaan sidaan habeenkiiyo maalinta u maamulo baa ilaahay leeyahay ee waxa nool iyo waxa dhimanaya anigu aan u maamulo ayaan arsaaqdiinnana u maamulaa mulkigiinna u maamulaa cizigiinna u maamulaa sharaftidiinna u maamulaa waxoo dhan inay على منوال واحد يهي أي إلهي سبحانه وتعالى آيات كائنة قلت المامية آيات كاليو آيات كم معنى الددو إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين هاتنا إلهي وحشيقيا عدة أبورك اللي هدينا مامولك أنا لاغي عدة وحنا أبورتي يساقو سمييي إنو يهي محي كمامولك أنا له مامولك أسيحان نقضى مامولك قدرية يعني قوانين نولش كسعطة أما بنادم هالنقطة أما نضيح هالنقضة أما أدول هالنقضة أما عير هالنقضة iyo maamulka sharciga baynu isagu yeeshaaba ilaahay tilmaamaya ala lahu alkhalqu walamr abuurkana isagaa leh markii xagga hore lagu soo tilmaamay isagaa abuuray cirka iyo dhulka iyo waxan oo dhan isagaa habeenkii iyo maalinta isi dhexgeliya isagaa cadceedda iyo dayaxa iyo nujuumta iyo waxan oo dhan taskhiiriyey ayaa waxaa la yidhi wamaca dalik abuurkoo qura maahee ala lahu alkhalqu walamr abuuridana isagaa le ilaahay subxaanahu wa tacaala maamulkana isagaa le ayuha alaxiba nusuustaasi qur-aanka waa ku tiro badantay lilaahi mulku samaawaat waxaan u malaynaya ilaa 19 jeer bay qur-aanku soo aroortay lilaahi maa fi samaawaatna misay ku soo aroortay lahu maa fi samaawaati misay ku soo aroortay waxaa laga yaabaa haddii laysku daro kuwaas nusuusta caynkaa sheegaysa boqolaal inay noqoto مربا كفي الله هدي للمعرفتي إن وحلينو شيغو معلومة أينو بهن إن لينو قيسية هدي تهي مرقنا كفي الله حلوغو علينا وحلوغو علينا إن ينقرد دعدو دقيق إنك موت مركز تبا إن لينا حسوسيو ولذلك بقران كاين تاسو آيات باكو جرتا ولله ملك السماوات وهذا شيء جيا أما إن الله على كل شيء قدير شيء جيا أما خلق السماوات والأرض شيء جيا أما له ما في السماوات وما في الأرض شيء جيا إمساتكو أركتون قرانك آيات كلا إلهي وحين قلت الماما يا وروحي إنه هيسنودن نسقولي ما أصابك من حسنة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله وحلا لا يوحى النعمة هيستان با إلهي لي هدي دينتي هدي علمي تهي هدي عافمات تهي هدي أرزاق تهي هدي توفيق تهي ابتداء من الله الله كوضتهم
tusaale bashariyaan kuu tilmaamo waxbaad barata laakiin miyaad baran kari lahayd waxa aad maanta baratay waxaa laga yaabaa dugsiga ama iskuullada dowladda Norway ay samaysay ayaa sabab u ahaa inaad waxaan dhigan karto iyagaa macallin iyo iskuul iyo waxa kan kuu diyaariyey adigu juhdi waad bixisay laakiin waxaad baranayso oo dhan cid baa kuu diyaarisay dowladdan iyo waxaan oo dhammina waxay haystaan oo dhan cid baa sii diyaarisay kownkan dee cid baa iska leh nina wuxuu samaystay lama iman idan ilaahay wuxuu leeyahay maa bikum min nicma waxay doontaba ha noqoto bini aadamku wax kasta uu sameeyo silsilad baa laga yaabaa in la maro laakiin hadihi silsila kullaha waa wasaa'il waxay ku gabagaboobaysaa in ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala sida ogeed baa ilaahay wuxuu ina leeyahay war wax allaaliya waxaad nimco haysataan nimcadaasi nooca doonta u fasil diin ha noqoto cilmi ha noqoto dhaqaale ha noqoto sixa ha noqoto caafimaad waxay doontaba ha noqoto فمن الله با إله إليه ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون آياده فرسو مركي النعمة الله الشيء وما هاد نقدر لغما أورنين لكن وحال لين حسوسي مركا سي مشكلة دو إذن فود عدنا كل يوم أكو سوء عررتان با إلهي مركا مشكلة دو سيدا قبصتو إنسان هو مركو النعمة يسيني حسوستي سو ما برنا يقولوا جرا قف صبحي مركو توصيل هذا الحمد لله ساك وانا عافمات قبا كان اسكالا الهي سي قفين هذا هدو يقولوا جرا نوا فيري رير ويرتي لكن ساك حتى توستاد يقول حنوصانيا وحال الله با الهي يودينت كل بابا دينيس اذا قفك بني ادم كهي مركو النعمة هي انت بدن حسوستكم بدنا ولذلك با الهي وحين حسوسي وما بكم من نعمة فمن الله با الهي وروي وحن نمعها السلطان أردن إلهي بكيم سبحانه وتعالى ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون بإلهي مركا رفتو إذا هلاشنا حق الرب وعررتا أيها الأحبة نصوصنا وحي نوت المامسة مركا استئرين وحصوصنا أن الرب جن سبحانه وتعالى مركا استوى إن ندرينه وحنا إنه هيسرنه إن إلهي ليه inaynu dareennay inaynu ku hoos jirno maamulka ilaahay sida awgeed buu nabigu wuxuu leeyahay man radiya billaahi rabba riwaayada imaamu muslim abu daawud riwaayadiisuna man qaala raditu billaahi rabba ninka yidhaahda ilaahay baan rabbinimo raalli uga ahay ilaahay baan xukunkiisa hoos joogaa weeyaan ilaahay baan maamulkiisa aqbalay وبالإسلام دينا إسلام نمن الدين لغو رقمان رالي وغاهي نبي محمد عليه الصلاة والسلام رسول نما من نبي نمن رالي وغاهي كي أقبل قضية دسبة إلهي لي وجبت له الجنة ونبوة المامي كجنة واجبتي رضاق ماها مركبة علماء دو إلهدان كلمة تنطق ماها قرى وأفكو قرى لغا إلهدو هو عقيدة قلبي قدكته وهو ما هي عقيدة قلبي قدكته إنك مطمئن كنت كوكل سونت إلهي ما ملكيس أما كيس الشرعي هذا وكوسو دجيه أما كيس كوني جاية وحكلا كل ما هذا إنك كقلب سنتي وكنية سنتهي إلهي سبحانه وتعالى ما ملكيس وأطرميسته هداد وحويده إن إلهي كوي تحامي هاي داري كو جرتو هداد كرو كو يالو كو حوشيو إنداني كو جرتو إلهي سبحانه وتعالى مر بيننا كو ظلمين نعمدي سيني تهي وحا داق السهبين يا مالين با وحا أدوني سهدو هبسامو إن أنا هين عقابي بلايا كو دعضي هدي لغو سود دجينا إن أنا محبة قارة المامين أدونك وحي يالا إلهي القرآن كان بدن بينو قلت الماما يعدوا دورك السيئة لكن هو للابتلاء والامتحان وإلهي حكم كيسا ما وقش يوم بلغو إيجي وهداي حق النعمة أو بدن تهينا إلهي حكم كيسا ما وقش وما أم هاد نقيسا هداي حق الرفت أو بدن تهينا إلهي حكم كيسا ما وقش وما صبريسا مسيب مرنا واد كبريسا مرنا واد قوسانيسا إنسان هو إما إنه شاكر نقضه إنه متكبر نقضه ولا ماذا مد markuu nimcada iyo caafimaadka iyo xoogga iyo xoolaha helo markay dhibtu haleeshana
إما إنه قنوط نقضه قف قوسته وإلهي وحكى شيئا هدو الدونبا تتكبر سيدي كان لكارتو أو أركا إن سيقى بلايو نبكسوه يتي أما إنه الصبر أو قرتين لهي امتحاميو بل إيغيو إيمان كيسو انتو لغيو عبادة دي سيدي تاي أيها الأحبة إن قضية في قلبك أنه كنت تدرادد بوحا الله ينوغنك أذكارت حتى إنه وردين لين يحاط وحديث النبي عليه الصلاة والسلام وحكم إذا قفك الصبحي مركوا بريستو إذا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فأنا الزعيم لآخذن بيده حتى أدخله الجنة بنبوه عليه الصلاة والسلام نك مركوا بريو رياضة كل واقعة إلهي بان رب النمو أقرأ نبي محمد بان نبي النمو قرأ إسلام نمان دينها نقرأ كل واقع سواء دبك تهيده نبي حلي أنا الزعيمة أنا كفالة قادرة قعنت قفتو إلى جنة كقليه ونبي المامية عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة نصوص بدن وقرآنية حديثة بمسائلكم كساروري وحانا لو قدن لي هي من قلبي إنه مركز إلهي كحدناض أنا أسباب توقع كحدناني أسباب تنمادقة إن أنا نقولني وحقوينا ينوم موضة ولذلك صلاة مركز نتكون إنه أوراد الآخرية محاكم ده سمع الله لمن حمد مركز الله يدعوه وردي الآخرية وحكم ده ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد حديث إمام مسلم ورنية سمع الله لمن حمد مركز لدى أوراد الآخرية وحكم ده وردي كان وردي وحو شيغايا inaad ilaahay u mahadnaqdo weynayso wuxuu sheegaya inaad tidhaahdo allahumma laa maanica limaa actayt waxaad bixiso ilaahayow cidina ma joojin karto waxaad adigu bixiso cidina ma joojin karto cagsigana walaa muctiya limaa manact adigu waxaad diidana cidina ma bixin karto haddaad taa dhab u rumaysan tahay ilaahay unbaad isku daysaa inaad raalli geliso haddaad rumaysan tahay ilaahay wuxuu bixiyana inaan cidina celin karin wuxuu kaa manciyana inaan cidina ku siin karin walaa yanfacu daljad agtaada wax kama taro midka maamuuska ama ghinaa ama xoolaha ama maamulka u saaxiiba walaa yanfacu daljaddi minka aljaddu waxba uma taro وصلاتي مركي لو جيري صلاه مركات كبخده ورديgeedana hadana waa kamid markaan salaada ka baxna maxaynu dhaanaa awraad aynu akhrino بعد الصلاه waxa kamid la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ومركا صلاتك بحنا waa lagu celiya awraadan maxaa loogu celcelinaya markaa inay qalbigeena degto haddii taasi ay qalbigeena degto waxay noqonaysaa adduunyo haddaad doonaysana inaad ilaahay ka raadiso aakhira haddaad doonaysana inaad ilaahay ka raadiso kelmada u fiirso waxaa laga yaabaa inta badan aakhirada markaynu doonayno inaynu idhahnaa salaad baynu tukanaynaa oo ilaahay baynu baryaynaa oo aakhirada laakiin adduunka inaynu rumaysannahay xooggeenna inuu ku xidhan yahay iyo farsamadeenna iyo digdigteenna لكن waxaan nusuustu inoo tilmaamaysaa adduunyadana ilaahay isagaa lahoo maamula aakhirana isagaa lahoo maamula qadiyadaas sababta oo ka harantay doona shawgeed baa ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xaythu laa yaxtasib ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala ciddii alla ka dhowrsata ilaahay wuxuu u yeelaa makhraj مخرج هو محي وميل لغا بخو ميل لغا بخو قفك بني ادم كاهي غنيمه انه هلو اي مشكله دوينه كفيدنتو مشكله دوينه كفيدنتا با ugu horeysa way nicmada kale waxba kuma tarto hadaad in crisis hadaad ku jirto hadaad dib kale ku haysato مثلا hadii caafimaad darro ku haysato
waxaad xoolo leedoo dhan waxba ku tari maayaan macno badan kuu samayn mayso xooluhu waxay dhadhan leeyihiin oo lagu raaxaystaa marka aad maxay u caafimaad qabto walidaalika ilaahay wuxuu soo horraysiiyey war ilaahay haddaad ka dhowrsataan mashaakil kasta wadduu idin furaya waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhrajan wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib waxaa kaloo ilaahay tilmaamay arsaaqduna inay ka iman doonto markaasi meel aanad adigu ku talagelin asbaabihii adigu aad isku duduuday iyo halkii aad islahayd waxbaad ka helaysaa meel aan ahayn in ilaahay wax kaa siin doono subxaana wa tacaala imisaad tijaaro bilowda iyo waxoo aad waxba ku soo salaaxi weyda imisaad wax yar meel iskaga tuurta oo aad nimco ka heshay waxaad adigu ku tala gashaa ee aad qorshaysataa almost sideeda uma dhacdo ama uma wada dhacdo ilaahay markaa wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala war haddaa aniga waddadayda raacdaan wixii dhibana anaa idinka samaynaya meel aa ka baxdaan wixii arsaaqana bini aadamku inta ugu badan waxa lumiya xooladoonka ugu badan arsaaqdoonkani aad buu u khatarsan yihi walidaalika qur-aanka markuu masaa'ilulcibaada ka warramayo inta badan cibaadada iyo arsaaqda waa isku daba xidhan yihin markaad eegto waayo insaanku xaaraantan iyo dilkan iyo dhacan iyo boobkan iyo gumaysigan iyo waxan oo dhan marar badan wax ka dambeeya xoolo raadin si awgeed baa ilaahay wuxuu ina leeyahy war wixii mashaakilku haystana anaa kaa faydaya oo wadda kugu samaynaya arsaaqana anaa ku siinaya baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbu ninkii ilaahay ku kalsoonaadana ilaahay wuu ku filanya baa la yidhi kalsoonidu waa qadiya qalbiya ninkii ilaahay ku kalsoonaada taqwadu waa camal tawakulkuna waa ictimaad alqalb waa qalbigaagu inuu ilaahay ku kalsoon yahay kaa ilaahay baa ku filan baa la yidhi subxaana wa tacaala qur-aanku masaa'ilkaas si laynoogu caddeeyo tusaalayaal baa ilaahayna siiyey oo kitaabka alle ku qoran tusaalayaashaa waxaa ka mid ah qisadii nebi muuse qisadiisu aad bay u cajab badantay ilmo yar oo dhashay oo boqor dhan oo waddan haystaa raadinaya wuxuu arkaba inuu dilo oo hooyadii xal u weyday aan ahayn inay badda ku riddo oo ilaahay baddaasi ka badbaadiyey aayaadka qisadan ka warramaya maalan fii suurati alqasas ku jira ilaahay muxuu leeyahy ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونجعل waxaan rabnay baa ilaahay yidhi inaannu ku mannaysanno ku galladaysanno siinno kuwii la dullaystay la gumaystay inaannu madax ka dhigna baa ilaahay yidhi waxaan kaloo rabay baa ilaahay leeyahy kuwii madaxda ahaa iyo kibirsanaa waxay ka baqayeen indhahoodoo shana inaan tuso ونuriya fircawna wahaamaana fircoon iyo haamaan iyo kooxdooduna waxay ka cabsanayeen inaan tuso baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala laakiin waxaa laga yaabaa innagu waynu degdegaynaaye time framekaasi intuu qaata muusaa dhashay bad baa lagu riday waa fircoon iyo reerkiisi baa ka soo saaray waa la koriyey cid buu dilay waa baxsaday reeruu cidla'a buu u tegey meel buu ku busaaradsaday uu leeyahay ilaah waxaad siisay waan ka faramadhnahay kadib baa hablo adhi waraabsan karile uu yimi adhigiibuu u waraabiyey aabbahood baa yidhi u yeedha hable u sheegeen gabadh baa la siiyey xoolaa la siiyey halkiibuu 10 sano joogay isagoo nin weynuu soo noqday dhexda markuu soo socdaa waxyigii ku soo degay rasuul baa laga soo dhigay fircoonkii sidii u kibirsanaa buu u yimi qisadaasi waa qiso dheer aynu wada garanayno laakiin ilaahay wuxuu inoo sheegay marka hore inna fircawna calaa fi lard fircoon dhulka waa ku kibray baa ilaahay yidhi anna waxaan doonay kuwaa la addoonsaday inaan madax ka dhiga baa ilaahay yidhi kuwaa wax addoonsadayna inaan waxay ka baqayeen aan tusiyo qisadaa dheer marka ilaahay inoo tilmaamay qisada meel ka midoo quraynu hadda tilmaamayna nebi muuse waxaa lagu yidhi ka saar tolkaa magaalada oo guuraysii habeennimuu guuraysiiyey dabeetana meel bada buu soo gaadhay
fircoon iyo ciidamadiisiyo isa soo urursadayna way ka daba yimaadeen. ilaahay suuruu ina siinaya markaa iyadoo xaggaana badi joogto, xagganna ciidamadii ninkii laga soo cararay uu soo socdaan, iyana labadaa dhexdooda ay ku jiraan. dadkii fircoon la socday qaybo ka midi markay arkeen waxay ka fakereen asbaabtii maadiga ahayd. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. أسبابتي مادي بني آدم كوكو حسابته من شري أيو كفكرين مركي أي أركان حقنا ينبط هاي حقنا عيدا مت هاي أيو حي نبي موسى كوي هذين إنا لمدركون لين قبي وهلين حالي لا يبيد هذين لين سوقات وهي حقنا وابد حقنا وعيدا مو نبي موسى labadooda nadruun u kala fiirso, iyagoo asbaabta maadigaa bay arkaan. nebi muusena musabbibul asbaabka uu muuqda, ilaaha sababta isagu sababahan dhigay. qaanuunka fiisigiska inagu ina xadeeyaa, laakiin dad rabbigii dhigay ma xadeeyo. marka nebi muuse wuxuu eegay ilaahay subxaanahu wa tacaala, wuxuu ugu jawaabay kallaa ina maciya rabbi sayahdiin. may nalama qaban, laylama soo gaadhin, aniga rabbigay baa ila jira buu yidhi, waanu ii jid bixin doonaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa ii jid bixin doona. aayaadka qur'aana faawxaynaa ilaa muusaa nadrib bicasaak. alfaau liltacqiibi watartiib, surcay tilmaamaysaa baa la yidhahdaa. kaannamaa nebi muuse waxa loo waxyooday isla markiiba ushaada ku dhufa badda. ilaahay wuxuu rabaa inuu ina tusiyo asbaabtu inaan ahayn wax sameeya, ilaahay subxaanahu wa tacaala ina ku xidhan. dabka ilaahay hadduu doono inuu idhaha waxbaa gubin inaan gubayn. asliyan ilaahay wuxuu u dejiyey dabku inuu wax gubo. waa qaanuunkii layna yidhi innaga ku dhaqma. innagu inta dab isku tuurro odhan mayno gubi maayo, waa gubaya. ilaahay baa saa u dhigay. laakiin wuxuu inoo sheegay isagoo hadduu doono inuu ka joojinayo inuu wax gubo. nebi ibraahim qisadiisi baa ilaahay inooga warramay. halkan waa bad fiisigiska laynoo dhigay, ama ilaahay qaanuunka uu dunida u dejiyey. ilaa fiisigiskana waa qaanuunka alla meesha u dejiyey. qaanuunka alla u dejiyey oo la biyo ma kala jeexdo, bad miyaa ul kala dilaacisa. qoladii asbaabta eegtay waxay dhahay waana la soo gaadhay. nebi muusene musabbibul asbaab ku eego wuxuu yidhi aniga layma qabanin. ilaahayna amar buu siiyey usha ku dhufa badda. qofku hadduu ilaahay rumaysan yahay, ilaahay awaamirtiisa uu fulinaya, waxay doontaba ahaato, walow caqligaaga yariyu suuradayni. haddaanu se ilaahay rumaysanin muxuu odhan lahaa? ilaahay ou uli maxay bad ka taraysaa dee? socaynkaa maayo dhacdeen. haddaanu qofku ilaahay si dhaba u rumaysnayn, marka la yidhaha badda usha ku dhufa, badda ushu maxay ka taraysaa? nebi muuse ushiibuu badda ku dhufta. ilaahay wuxuu yidhi fanfalaq, waaba kala dilaacay baa ilaahay yidhi, waa kala dhambalanta. kala dhambalan quran maaha, biyihii sidii laba buurood bay noqdeen. biyaha miyaynu ku naqaanaa inay buur noqdaan? biyo meel ay u socdaan helayaa inay istaagaan oo qaanuunka fiisigiskiisaa dhigi maayo. biyihii buur bay noqdeen baa ilaahay yidhi, ka tawdi alcadiim. waxaa kaa ka sii daran aayad kale ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa jidka loo bixiyey xataa inaanu ahayn jid dhooba leh. haddii baddu kala jeexanta maxaad rajaynaysa meesha inay ka soo baxda maxay? dhoobo. ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya ariiqan yabasa, waddo engegan baa loo bixiyey. biyihii waa la kala jeexay, wa maca daalik waddada soo baxdayna waddo dhoobo iyo dhiidhiya maahe waa maxay? waa waddo engegan baa rabbi ku tilmaamaya subxaanahu wa tacaala. dabeetana ilaahay wuxuu ina leeyihi waanjaynaa muusaa waman macahu ajmaciin. nebi muuse intii la socotayba waan badbaadiyey. ثم أغرقنا الآخرين بإلهي كوي كلنا وانو هلاكن. إنسانكو مركو كبرو عقل قوة دبور ما لوجيك سكو كتاقا. إنسانكو مركو كبرو فرعون يعيد مدى الله الصعودة ويركي يمشان أنا بطهي وأنا يقانين وأكو عصب معها ويركي النبي موسى لوكالا تشيحي. caqligoodu muu siinin, war ninkan malaha xaq weeyaan waxa uu sheegay la isaga badda loo kala jaxar ma inagu ku qarqoonnaa.
aduu bad iska kala dilacsan iska geli lahayd laakiin markaad kibirto insaanku aqligu uu daboolmayo reasoning iyo rational uu ka baxaa fircoon isagoo arkayuu isku soo qaada isaga iyo ciidamadiisii oo dhamma way soo galeen markay soo galeenna ee ku soo dhammaadeen xabadi ka hadhinna ilaahay biyii buu ku sii daayay gooraan toobaddu waxba taraynin ayuu yaqiinsaday arrinku inuu khatar yahay markaasuu ku dhawaaqay waxaan rumeeyey biladii aamanat bihi banuu israa'iila wa ana min almuslimiin ilaahayna wuxuu ugu jawaabay al'aana waqad casayta qabl ma hadday ku keentay baa la yidhi iyadoo hore lagugu tag lahaa hada ilaahay u diiday ayaad iminka ku dhawaaqaysaa waan rumeeyey hadda qarqaraday soo dhaaftay baa la yidhi toobadii kaaba jirto ilaahay aayaadkaa wuxuu ku gabagabaynaya iyadoo qisada innaga laynoo tilmaamayo ina fii dalika la aaya wamaa kaana akharuhum mu'miniin baa ilaahay mas'aladani waa wax lagu qaata baa ilaahay leeyahay waa calaamad u baahan bini aadamku wax ku fahmo laakiin dadka inta badan iyadoo calaamadda ay arkayaan haddana ma rumaynayaan baa ilaahay subxaana wa tacaala wa ina rabbaka lahuwa alcasiizu alraxiim rabbigaana waa allaha qaalibkii xoogga badan leh ee fircoon iyo wixiisii oo dhan halaagay raxiimka ee naxariista badan leh ee muusiya intii la socotay u naxariistay saasaa ilaahay isku sifeeyey subxaana wa tacaala ayuha alaxiba ma soo koobaya darsiga qiso labaad baan iyana idin tilmaamaya si kooban reer banu israa'iil halkay ka soo bilaabmeen haddaynu ku noqonno qoys yar oo nebi uu dhalay nebiyullaahi yacquub nebi israa'iil oo meel degan bay ahaayeen reer falastiina kadibna wiilashii uu nebi yacquub dhalay waxay colaadsadeen wiil yaroo ka mida ilaahay subxaanahu wa tacaala qisuu inooga warramayaa ah in nebi yuusuf alla doonay inuu madax ka dhigo laakiin si madax looga dhigo dariiq dheer baa ilaahay soo mariyey nebi yuusuf hadduu gurigooda iska joogi lahaa inaanu madax noqdeen bay u wadantay laakiin ilaahay jid buu soo mariyey dheer jidkaa markuu ka soo tallaabayna masar buu madaxdii ka noqday oo jidkaasi muxuu ahaa in isagoo yar god lagu rido godkaas waxay culammadu yidhaahdaan qisada yuusuf waxay tilmaamaysaa mixnadaha aad maraysa iyo fitanku lacallaha inay manxa yihiin ilaahay ku siinayo adiga suuraddaad u arkaysa waxa laga yaabaa suurad dhibeed inay tahay laakiin waxa la arkaaba inay fursaddii kuu tahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kula rabay kugu gaadhsiinayo nebi yuusuf dariiqii mulki si loo gaadhsiiyo walaaladii baa lagu itixaamay oo god ku riday godkiina qolo safaraa kala baxday oo addoonsatay addoonnimay u iibiyeen addoonnimo markii loo iibiyeyna gurigii boqortooyada iyo wasiirada meeshaasaa la geeyey casiizu misr haddana waa la itixaamayo inuu gurigaa addoon qura ka noqdo looguma talagelin waayo addoonnimada ama dhaafeen waxaa imtixaan kale ku noqotay gabadhii guriga joogtay imtixaankii kale wuxuu sababay inuu xabsi galo xabsigii wuxuu sababay isna kuwa riyooday inuu riyadood fasiray boqorkiina inuu riyoodo oo cid u fasirta la waayo inuu sababtaa kaga soo baxo boqorka riyadiisii inuu fasiro riyadii boqorka uu fasirayna inuu ku noqdo maxay maamulka sare nin loo dhiibo idan qisada tani waxay tilmaamaysaa walaaladu tadbiir bay sameeyeen nimankii la walaala ahaa yuusuf aan dillaya aan fogayna isku qabteen aan fogaynadii bay qaateen godkaasay ku rideen waa la arkaa in meelaha la addoonsado la qaadeen imra'atulcasiis qadiyad kaley dabarteeyana wiilkaa yar inay hanato markay weydana waxay isku dayday inay kufsato markuu kufsigii u suurtogeli waayena waxay isku dayday inay xidho waa xidhay
tadbiirkeedii kaasuu ahaa sijnigaasuu soo maray boqorku waxbuu dabaraysana laakiin wuxuu dhan marka la isku daro ilaahay baa wuxuu ina leeyahay والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وحاب بن آدم كتدبيري يوردن إلهي وحليه سبحانه وتعالى إلهي أركي سواكي كحوق بدن ضدك سينت بدني مؤقبا إلهي سبحانه وتعالى يجو تدبيرات بشرية بيودين لكن إلهي من ورائهم أسباب تنوحكروا غدا لها يا نبي موسى إن ليمكن إن إلهي مكان سيوه أو النقضة كدولك كتلين يين النقضة والله غالبا على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون أيها الأحبة إله سبحانه وتعالى مركاسي نبي موسى بدأ ودبري نبي يوسف حبسك يدولك كسو صاري إمام الكيسو نوعي وحين ليه ورنا عركي يدولك بهمته أنا أدونك يا آخرة باله يا أنا إسرائيلي قليل الدنيا والآخرة لبدا بقى أنا قعنت يدي كوشيران با إلهي إليه سبحانه وتعالى جدك هدام مرتان جدك إلا مراه وحبوبا هي إن ليس يتحامده نقول بعد دولة عشان أنتوا تكدوحوا وربوردن وهليو ده امتحان تحس نغن مش وحلا يدوال لدن سوي تحامية مثلا قصة إلهي نوغا ورمي نين مؤمن آل فرعون با إلهي كورمي وليه فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد تلك يوم ويدن قران دونتان بولي وحسوسا دونتان وحان إذن لايا وحان إذن أران دونه إبا إذن حسوسا دونان أنا قنا أركي يقولي إلهي بانو udhigtay ilaahay baan u bandhigtay ilaahay baan u dhiibtay yani arrinkayga ilaahayna waa kii addoomihiisa arkaya kelmaddan ma iyadu ka bilaabo maya qur-aanku qiso dheer buu ka soo warramaya suuratulmu'min ghaafir ilaahay wuxuu ka soo warramayaa ninkani inuu tolkii diinta ugu yeedhay inuu xujo la xujaytamay inuu u naseexeeyey inuu xaqa u caddeeyey markii arrinku soo gaadhay inay yidhaahdaan waa ku dilaynaa weeyaan markuu leeyahay waxaan idin leeyahay idinna waa idin garan doontaan dibba idinka xasuusan doontaan aniga dilkana ay igu hanjabaysaan iyo waxa kanna ufawidu amrii ila allah arrinkayga ilaahay baan u dhiibtay ilaahay baa markiiba jawaabta aayadda ku xigtay inoogu tilmaamay fawaqaahu allahu sayi'aati maa makaruu baa ilaahay alfaw litacqiib watartiib فوقاه الله إلهي وحوك إلالي سيئات ما مكروا وحي نكرن إيا خيانة إيا مكرن إيا أي السمايين حمهدي إلهي وكا نورا حق كلنا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون خير فرعون إلهي وحو ندنسي عذاب كي أكرلا عذاب كي يفعل حمابا كوانا لندنسي كان ولا بدبادي بقى لله سبحانه وتعالى قرانكو ينوم الشيء قصة مؤمن آل فرعون قاب كيلو بدبادي يو بحصدي ما قولا سيدي سي ما لا ينوم الشيء لكن لا يوحو ينوم الشيء يقول كان ينو بدبادي كوي كلنا ينو هلاقي أيها الأحبة آيات كسوحي نوت المامة أمر التفويض ومركز هذا وحي كسارات سميسيد intaad meel iska fadhiisato adaa tiraa waxa uu qaban maaye arrimaha ilaahay baan u tala saartay kaasi tafwiid maaha tafwiidku waxa weeyaan markaad ilaahay jidkiisa raacda ee asbaabtii adiga lagu amrayna aad samayso asbaabtana aanad aaminsanayna ilaahay aad aaminsan tahay subxaanahu watacaala ولذلك بقى إلهي القرآن كما قلت المامي ننكي كبرية حولا بدن هلاي قارون لورن شري تلكي يولا تالينيا حكونا يا ورهوي وحبها كبرين لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين بكودان ورقوقي قوق درادة فرح إلهي كور نوع عاسية متشعلة حيكو لطاليين مركا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا
ما يكون أورانين أدون كبكتك وحبها قوانين شغيسان عندنا كما أوران اترك الدنيا لما أوران هل ولا تنسى نصيبك من الدنيا ده دفت هذا إلابن لكن وحلوه الرئيسي وابتغي فيما آتاك الله وحي ألا كسيك وفرس قرآنك لما أورانين وحي أتشغيستي وحا لحصوصين يا وحانين إلهي إسكالها سيقو قاوان بالله داليد ونبا الدنيا يمي سيقو حالوتا هذا قاوان وباتبي هو يقول شيء دبتنا وحا لحصوصين يا وحانو هايستو رب السماوات والأرض ينسيي مركا محل يدي وابتغي فيما آتاك الله وروحي ألا كسيي وحد كل رادسة دارت آخره ووحا اللوغو دردارنك اللوغو كله الرسيسي وكله مهم سيء أدوك هنا تقولي ستي آخرين تقولي ستي كيوي تآخراوي مركا قفك مركا تلطة لنسو دي الرما واوين مركا تكالطة لسا كوا يرير الله شايقا سادر أدد وحي وهو الرئيسيين وروي واحد هايساتوه إيه إلهي كسيي نين إلهي قديم يا إنو جرا ما يقف البا إلهي وحوسي عقل كسيي أقوم بكسيي علم كسيي عفمت بكسيي حول كسيي دد بكسيي قف البا إلهي وحوسي لكن إلهي ما حالا ينقربه وحي ألا كسيي انت الدوران أقول لك هذا هبط نادان هير هذا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة والرجل يا قومت دي علمك وحي ألا كسيي دارت آخرة كرادي ولا تنسى نصيبك من الدنيا الدون كان دفتت كل هذه إلابي حكسو وحي ألا كفر السماء وأحسن كما أحسن الله إليك لكن سيدي إلهي كو قصة مفالي قصة مفالا دور سيدي إلهي كو وناكيي ونكسنو ولا تبغي الفساد في الأرض دول كراها بيننا فساد إلهي خلقك يا بشرك يا دون كان وحي فسادك إلهي وايو إلهي مفسدين تمشي على بيك ولا تضر عنه أيها الأحبة مطلوب كشيء هاي مركا وامحي وحي ألا ينسيين إنه آخرك استثمار صنه دونك waxaynu naqaanaa in lagu yidhaha saving samaysayo dabeetana maxay samee istismaar saxiixa maaha xoogso dee waxaad cuntuun waxbaa ka dhigine wax meel yara dhigo weliba waxaad isku daydaa waxaad meesha dhigayso meel wax soo saaraysa inaad geliso haddaba waxa nolosha oo dhan waxaad isku daydaa savingkaaga ugu badan inuu aakhiro noqdo ilintaan waad ka tegaysaa savingkaaga ugu tirada badan leh inuu aakhiro noqdo saxaabadii sida tan fahamtay markay doonaan abubakar dadka wuu iimaan badnaa baa laleeyahay waayo dee waa ninka laba goor xoolihiisaba ka baxay wuxuu arkayay inuu dee fursaddii ugu ballaadhayd inuu hayo markaasuu dhiibay wuxuu haystayba kalsooniyu ilaahay ku qaba daraaddeed idan waxaynu u baahan nahay nolosheenna inaynu investment uga dhigano inaynu invest garaysana aakhiradeenna hadduu caqli yahay hadduu cilmi yahay hadduu dhaqaale yahay hadduu hanti yahay wax kastoo aad haysato waxa ugu badan inaad ku invest garaysato maxay meeshaad berri u sii socoto ilaahayna wuxuu inoo tilmaamay tilka addaaru alaakhira najcaluhaa liladiina laa yuriiduuna culuwan fi lard taasi waa daarta aakhira baa ilaahay yidhi oo aan ugu talagalnay kuwa aan doonaynin dunida inay ku kibraan lama odhan aladiina laa yacluun lama odhan kuwa aan koraynaynin مسلمين تاني كوريسا ولا ربا الإسلام يعلو ولا يعلى عليه كور نقطان دون كتاليان ولا ربا لما ورنين مركا كوا أن كور نقطين إيه واحد ليدي محي كوا أن دونين إن كور نقطان معنوه محي وكوا دون يا آخرة يا إلهي سبحانه وتعالى وحق سيجر الرادينية مركا إرادة العلو محل ينقربها إن قلوبتين مركا كواد سلاحينه قصدي iyo waxaynu soconaa inuu aakhira noqdo inaynu islaaxino saadaradeed baa ilaahay wuxuu leeyahay aakhira waxaan ugu talagalay liladiina laa yuriiduuna culuwan fi lard kuwaan isla weyni iyo kibir adduunka ku samaynaynin wala fasaada walcaaqibatu lilmuttaqiin adduunkanna ilaahay wuxuuna leeyahay man kaana yuriidu alcaajilata cajalnaa lahu fiiha maa nashaa'u liman nuriid tan degdegaysa ninka doonaya
waanu horumarinaa baa ilaahay yidhi kuwaanu doonno wixii aanu doonno maa nashaa'u liman nuriid dadku xoolo u wada doonaya miyay wada helaan ilaahay wuxuu yidhi kuwaanu doonno iyo wixii aanu ka doonno ayaanu ka siinaynaa kuwa adduunyada doonaya ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا كدبنا جهنم كو أبورا يا با إلهي سبحانه وتعالى أما كو آخرة دونية ومن أراد الآخرة لبدا قربة إرادة بالة المعمل إرادة دوا محي وقصدك النية دي واحد أفكر صعطة وحي ما الدون هل بعض صعطة بس آخرة هل بعض صعطة حق قلبك كبوحة ومن أراد الآخرة بإلهي نك آخرة دونية وسعى لها سعيها شقد يدينا قبنية وهو مؤمن نسقو إيمان لغا هلي صد 11 شيء عدة لغا هلي إرادة صافية أما الدونس نغبش وضنين إيا شقو إيا إيمان صد 11 نكي لغا هلي بإلهي سبحانه وتعالى كاوا محي فأولئك كان سعيهم مشكورا كون لمن نشاء لمن نريد الغمحرين كون إلهي وحولي كان سعيهم مشكورا شقدو دوال لغا أبال مريني شقدو دمدين إلهي سبحانه وتعالى كأبال مريم أي نقونس أما الدنيا ده كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا أدونك قال هذا روح بانو كسين با إلهي دي مسلم روح بانو كسين إلهي وحبحنتي سنة وابلارن تهي أيها الأحبة درسيا حنكو صورورينيا مسألة دا الدنيا آخرة بين إلهي هيين قلبي نسفي عن جرته الدون هي آخرة إن إلهي قعنتي سكو جرته الدون كمرك إنه إسلاحي سربنا طريقة إنه مرينا إنه النقضاء لبدا إلهي إنه يبرالي قلينه هدينا الدون كأننا ربنا إنه وناجننا إن الددال كأنه بطينا إنه إلهي رالي قلينه هدينا ربنا آخرة دينا إنه وناجننا إنه الددال كأنه كانوا بطو إنه قرانو عد كلو الدنيا دان ما مشاهينا نيشيري وحان كالور دمي وميلا سوكي إلهي سبحانه وتعالى وحود دون أيوه وهتل ما يكون فيكون يكون عدو فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إلهي هدو وحدونه وحلالي يوحي الله دونه سبحانه وتعالى ربي وحد المامين يكون فيكون كل عيش وأن عيدنا با ما ملك له ذاكي إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.